wuxuu ka socdaa magaalada ay ka mid yihiin Boorama, Berbera, Burco, Sheekh iyo Hargeysa. Shaadiye Maxamed Rooble oo ku sugan magaalada Burco ayaa dhammaadkan noo soo dirtay. saaka subaxnimadii ayaan ka soo baxnay Berbera waxaan taliyay intii aan u soo soconay Burco aan ku arkayay dad ku sii qulqulaya Berbera si ay uga qayb galaan aaska marxuumka kuwaas oo isugu jira mas'uuliyiin dawladda ka tirsan hogaamiye dhaqameedyo iyo dadweyne kaleba iyada oo la filayo in lagu aaso xabaal ooga dhinac waday qabrigii aabihii magaalada Berbera. magaalada Sheekh iyo tuulooyinka u dhow ayaa laga dareemayay inay yihiin kuwa dadku ay ku yar yihiin una kaceen dhinaca Berbera. qaar ka mid ah duqayda Sheekh Xaaji Cabdilaahi iyo Xaaji Cabdilaahi Gamgam iyo Cabdiraxmaan Xaaji Jaamac ayaa sheegay in marxuumka oo ay dheer yaqaaneen ay ku sii karaan naxariis badnaan iyo awood uu u lahaa xalinta mushkiladaha iyo isaga oo lahaa karti uu ku kasbado ama ku kasban karo dadka uu doonayo. magaalada Burco ayaa yara si weyn ay dadku isugu diyaarinayaan ka qaybgalka aaska madaxweynaha waxaana dadku ay ku mashquulsan yihiin diyaarsashada gaadiidkii ay raaci lahaayeen iyo ambabuuxda iyada oo hawlihii kale magaaladuna ay caadi yihiin. qaar ka mid ah dadweynaha dhaqan magaalada Burco oo aan la kulmay xoogaana aan la sheekaystay ayaa ii sheegay in ay aad uga naxeen kadibna ay ku noqotay geeridii madaxweynaha kadibna ay aad uga walwaleen waxa ku xigi doona ama dhici doona. hase ahaatee dhaarintii madaxweynaha cusub ay dareenkooda dejisay waxaana qaarkood ay ii sheegeen in marxuum cigaal uu ahaa kiisas u dhigay nabadda iyo maamulka ay ku fadhiyaan. Shaadiye Maxamed Rooble waxaana la sheegay in la keeno subaxnimada Isniinta. cigaal waxa uu ku dhintay cusbitaal ku yaala magaalada Pretoria. ayaynu joognay geeridaasi kadib geerida uu geeriyooday Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waxaa soo baxaya dareenno dhanka siyaasadda oo guud ahaan Somaliland laga qabo. haddaba wariyaha BBC isaguna Xuseen Cali Nuur ayaa waxa uu joogaa magaalada Burco isagoo hore u soo maray ilaa iyo Hargeysa ilaa iyo Burco. warbixin arrintaas ku saabsan dareennadaasina go'dhaweyd noo soo diray. dareemada soo baxay waxa ka mid ah shir albaabco ku yeesheen 30 qof oo isku jira siyaasiyiin rugcadda oo ay ka mid yihiin Ismaaciil Cali Abubakar madaxweyne xogeenkii Jamhuuriyaddii Dimuqraadiga ee Soomaaliya, Suleymaan Maxamuud Aadan oo 1997 kula tartamay madaxweyne marxuum Maxamed Ibraahin Cigaal jagada madaxweynenimada, Axmed Silaanyo oo ah gudoomiyihii ugu waqtiga dheeraa SNM lana filayo inuu doorashada soo socda isu sharaxo salaadiinta reer Burco iyo waxgarad badan. Sultaan Maxamed Xirsi Qani oo aan saaka magaalada Burco ka kulmay oon ka weydiiyey marxaladan cusub ee haatan la galay waxa uu igu yidhi waa in nabadgelyada lagu tuntuunsada kala dambayn jirta oon kala jiidasha dhicin waa in la tashado. oo saaka tagay magaalada Burco haddana sidaa u noqday isaga iyo Shaadiye rayidkaha ee Soomaaliya ee 60 ilaa 69 Sheekh Mukhtaar ayaa isaguna waxa uu ka hadlay geerida marxuum Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal Allah ha u naxariisto iyadoo sidoo kale tan uu tala u jeediyay dadka Somaliland waxaanu sheekhu ku bilaabay. waan ka warqabay inuu soo halgamay sara badan aabihiis Berbera iyo Hargeysa ku laayay kulmadoonkii ku bixiyay lacagta Facebook iyo asaasay iyo waan ka warqabay isku darankiina isagoo barisanka yahay dowladii loo soo dhisay Hargeysa isagoo madaxa u yahay aynu yimaadeen oo waantan uu ka soo bilaaway Maxamed Ibraahin Cigaal waxa ku sheegay karaa nin siyaasi wadani mukhlis inuu ahaa nin oo hawda qawaaniinta in ku dheer aad u yaqaana nidaamkan dowladda ku dheer isla markaasna nin siyaasi oo sakaawan gacan iyo afba Soomaaliya hornimadeeda ku ayidaayo ku bixinayo ahaa nin oo masalkiisa Soomaaliya gudaheeda ku yariyuu ahaa intaasaan ka sheegi karaa nin wadani u ahaa Soomaaliland kama dhimin Maxamed Ibraahin Cigaal
soomaaliya dhunboo ku geeriyooday nin masalkiisa ee maanka soomaaliya si looga helaayo ma ogi axsaab badan iska jirtay oo siyaasad lagu loolnamaayo oo ninkii madaxa u ahayn hadda dhintay ilaahay wiinaha ina toofiiq waafajiya oo dalkii nabad u raadiyaan nabadii hadda ku dhisnaayo ay ku wadaan ninkii ilaahay madaxa ka dhigaayana ilaahayaa agtiisayaa jirtay keeni maanta ay doortaan ay ku raacaan inay harbo ahliye ee khilaaf oo kala tegi aan ka dhicin yaa u rajeynayaan faraya sheekh mukhtaar oo ahaa guddoomiyihii baarlamanadii kala duwanaa ee dowladihii rayidkii ee sanadihii 1960 ilaa iyo 1960